السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا أمهات سنتهين وقال وحنا بقينا إن ذكول وذاقه ورئيسي أن لا يلنا يه قرن عبد القني جبانه أو إسكاله كمبني لنعة شرعية أو جبانه لو فاملي رادو معلمه قدام بي واحد صوب حيي إن اللي يردي سومالي دا ودن كشرع درادة كسوق شيء لو سوق لنا يبلما محكمة أو ماستر هيرنا سومالي دا إنتو دا بدن أو قبل كلا دوان أو مريكان كهجوجو qaarkood hadda waa ay mareenba master hearingkaasi optionno ayaana la siiyay ilaa iyo laba ah qaarkoodna waxaba la sheegayaa in removal proceeding loo soo geliyay oo ah in wadanka laga saarayo haddaba arrimahaasi qareen cabdiqani jabane waxa uu sidoo kale leeyahay dad macaamiil Soomaali ah oo maxkamadoodu xitaa arbacada nagu soo aadan oo 4 maalmood ay naga xigto amaba ilaa iyo 3 maalmood ay maxkamadda macaamiishiisa uu la tagi doono haddaba dhalinyarada maxaa la gudboon marka ay tagayaan maxkamadaha iyo arrimahaasi ayaan rabaa inaan wax ka weydiiyo qareen cabdiqani soo dhawow waxa maalmihii u dambeeyay soo baxayay in maxkamadahan master hearing ka dhamaanba dhalinyaradii Soomaalida ah ee wadanka sharci darrada ku soo gashay loo soo geliyay qaarkoodna ay tageen kuwa kalena bishan inta ka dhiman ilaa iyo bisha March laga gaarayo bartamaheeda xilligaasi oo TPS temporary protection status ki bisha March ay ku egtahay 17deeda in loo soo wada geliyay maxay yihiin maxkamadahan dhalinyarada Soomaalida oo kaliya loo soo geliyay maxay salka ku hayaan ma hadda ay bilaabeen mise muddo ay socdeen waagi hore sidaan uma dhici jirin waxaan aragnay ma it's just like hadeer sidaan ugu tirada badan leh oo loo soo gelinayo kiisaskii Soomaalida ah hal mar waliba anaga hadda Minnesota ani lawyer kale oo aan garanayo Soomaali badan matala kiisaskii oo dhan oo hal mar la isku qabtay baa waxa loo ballamiyay xitaa xaakinadii halka dhageysan jiray kiisaska dadka degan Minnesota ma dhageysanayaan xaakinad badan ay jooga Texas iyo meelahaas marka laakiin waxa hore u jiray waana qeexi doonaa in awood loo siiyay xaakinadii immigration judgeski in ay kiisaska mararka qaar ayagoo sharciyo dhageysanayaan sharciyo soo baxay adiga sanadkii hore ilaa iyo sanadkan oo ay soo saartay hay'adda ka sareysa immigration courts oo la yiraahdo BIA ay soo saartay in ay judgeku ay kiisaska qaarkood iyadoo masarka London hearing lagu jiro ay sababo haddii ay helaan ay puri karaan qofkan ay ku xukumi karaan in dib loo celiyo marka sababahaasna waan kula dulmari doonaa maxay yihiin marka sababahaasi haddii lagu helo qofkaasi wadanka laga masaafurin karo marka ogaano masarka London hearing niyada la soo geliyay xaakinadu awood uma lahan qofka isla markaas haddii ay sababtay doonaan ha helaan ay yiraahdaan dib aan ku celinayo qofkii dib loo celiyo oo qofku yani xuquuq wuxuu leeyahay ah in uu ka hor yimaado in uu qaato racfaan oo hadda meelaha qaarkood 10 maalmood laga dhigay laakiin sababta ugu horeysa oo mar horena jirtay ilaa iyo waxaa jira a case la yiraahdo matter of car haddii waana arkay walaalow asylum caseska qaar lawyeradu ma wada xuma laakiin lawyero waxaa jira dayacay dadkii ay matalayeen oo incomplete asylum application haddii I-589 ka qofku uusan si wanaagsan u dhamaystirnayn number 1 oo wax qalada lagu arko may qalad ma yani shuruudaha jira oo ah inuu dhamaystiran waa gartay soo ma garan marka I-589 ku qaybu kale leeyahay waliba qaybta waxa ugu muhiimsan ka hadlaysa qofka dhigtii la soo waxay marka hadda tusaalahan yar baa jira oo hadda sanadkii hore kiiskiisa saas oo kale lagu xukumay dib u celin maxaa yeelay incomplete asylum application buu lahaa lawyer kale lahaa marka hadda waxaan ku matalaynaa appeal marka lawyerkii baa wuxuu sameeyay intii uu qofku wareysan lahaa uu u buuxin lahaa asylumkii uu meelihii muhiimka ahayd oo qofkii wuxuu ku qoray si waxaad aragtaa warqadda kale oo declarationku ku dhagan waa kala soo ma garan marka taa waa mid waa qodob u ogolaanaya case baa jira CARR la yiraahdo matter of car oo u ogolaanaya waa mid midda labaad waxaa jiray case kale oo haddana isagana dhawaan soo baxay
oo matter of HAAV la yidhaahdo waa garasoo ma garan marka kayskaas isaguna sidoo kale wuxuu ogolaanayaa xaakimadii in haddii ay fiiriyaan kiisaska qaarkood oo la weydiiyo attorneyga lawyerka waa garasoo ma garan oo markaas lagu guul daraysto in sababta waxay dhahaan nexus ama sababta asylumka qofkan uu ku doonayo aysan caddayn oo kale then marka xaakinku meesha uu ka tuuri karaa waa gartay marka kiiskaasna walaal wuxuu ahaa wuxuu ka yimid qof beeruu ka yimid oo asylum apply gareeyey oo xaakinkii Masar calendar hearingkii uu tuuray waa sanadkii hore case ahay qofkaasi appeal buu ka qaatay marka qofkan wuxuu ka cawday tusaale ahaan wuxuu yidhi criminal gangs baa waxay igu sameeyeen extortion waxaa la dhahaa baad bay igu soo sameeyeen waa garasoo ma garan intaa wuxuu yidhi baan kaga soo cararay Peru then judge wuxuu yidhi marka isagoo Masar calendar hearing ugu jiro okay well waxaa dhan xitaa haddaan kuu qadarin ay run yihiin uma qalantid yani shuruudihii looga baahnaa asylumka ma aadan buuxin appeal buu ka qaatay racfaankii BIA-dana way ku raacday marka kiis buu noqday hadda marka la adeegsanayo oo hadda aadna loogu adeegsanayo asylumka Soomaalida especially dhalinyarada yiri qaarkood waxaan ka soo cararay hanjabaadaan la ii sameeyey waxaan ka soo cararay tusaale ahaan al-shabaab wax kalena aysan ku jirin master hearingku macnaheedu waxay tahay macnaha sidaan hadalkaada ka dhadhansanayo in qofka asylumka xareeyay uu ku qanciyo garsooraha kiiskiisan sababta asylumka loo siin karo marka hadduu garsooruhu ku qanci waayo macnaha waxay tahay wuu diidi karaa may walaal waxaan wax cusub waaye Masar calendar hearingku waa soo marnay badanaa micnaheedu waxay ahaan jirtay ujeedada Masar calendar hearingku in just waxay dhahaan pleadings la sameeyo oo ah qofkii inuu ka jawaabo warqad laga soo siiyey NTA la yiraahdo oo just inuusan muwaadin Mareykan ahayn muwaadin Soomaali inuu yahay Mareykan xilligu soo galay oo aan consider jirnay aan qirin jirnay chargeskaas laakiin hadda Masar calendar hearingka way isbedeshay way fahamsan ma garan way isbedeshay waa gartay marka wax ka marka dhalinyaro fara badan oo tagtay hadda waxay leeyihiin in laba option ayaaba la siinaya dhalinyaradii midda koobaad oo ah in wadanka si voluntary ama mutadawacnimo ah aad uga baxdo hadhowdiina lagu dacwoon karo amaba in lagu masaafuriyo oo wadanka Uganda maadaama uu wadamada aqbalay uu ka mid yahay in dad aan wadankooda u dhalan oo Mareykanka laga soo masaafuriyo ay qaabilaan in la geeyo Uganda oo isagoo Uganda jooga kiiskiisa la dhageysto marka haddii macaamiishaada ay arrintaasi la soo gudboonaato maxaa qofka qareenka ah la gudbo good question walaalo mana sameyn karaan immigration judgesku in simply Masar calendar hearingka ay ku dhawaaqaan qofkan ha lagu celiyo Uganda waxay noqonaysaa ku xadgudub due processkiisa laakiin marka qaar waxaa dhici karta in markii ugu horeysayba notice la soo siiyey marka qareenka qofka matalaya bay ku xiran tahay inuu qofka u doodo ka diido judge-ka uu ka codsado yani the burden of proof culayska caddaynta waxay saaran tahay dowladda marka DHS waa inuu ka codsadaa inay motion ay soo gudbiso oo ah Uganda qofka aan in lagu celiyey in kale kadibna loo siiyo opportunity to respond and challenge the ACA Uganda waa garasoo ma garan laakiin marka taa Uganda iyadu waa la iska celin karaa waa fahamsan ma garan oo hearing gooniyaha loo qaban karaa laakiin labadan kala ka khatar badan oo aan sheegay oo awoodda badan judgeska loo siiyey inay toos u tuuraan laakiin tan badana waxaa lagu qasbi karaa DHS in ay motion soo gudbiyaan oo kadib hearing kale oo Masar calendar hearing camal ah loo qabto oo markaas doodi ay ka dhacdo in qofkaan lagu celin karo Uganda iyo inaan lagu celin karin iyadana walaal shuruudo gooniya oo qaas ah bay leedahay teeda kale maxaa dhici kara qofka asylumka xareeyay haddii lawyerkiisa aan la socon oo kaligii maxkamadda tago iyadana maxaa dhici kara oo qareen la'aan uu iska tago way dhacday dhalinyaro qareen la'aan iska tagay weliba kuwaas
waxaa dhacaysay haddeer laba qof oo aan ku matalo on appeal qaarkood markii ay tageenba masterka london hearing oo ayaamihii aad uga qabanayeen iced waa la dismiss gareeyey kaysaskoodii so ma dhahayo qof walbo keligii taga masterka london hearingka waa la dismiss gareynayaa kayskiisa laakiin qofkaasi khatar weyn ayuu ku jiraa maxaa yeelay qofku lawyer ma aha masterka london hearingkaanina ma ahan meel qofka lagu wareysanayo individualka ama trialkii oo kale ma ahan cilmiyo kan waxa weeye waa meel lagu wada hadlayo si sharci ah way fahanta soo ma garan marka tusaale ahaan baan kuu sheegayaa haddeer january yara hadda lawyer aan u ahay ba sidaas oo kaleeto masterka london hearingkii baa lagu soo celiyey xaakin halkan la yaqaano minnesota oo diidmadiisu aad u sarraysa isla marka wuxuu kusoo booday in sidaan kuu sheegayo oo kale sida matter of HAAV oo kale sidii ninkii beru ka yimid oo kale uu yidhaahdo okay well waa akhriya applicationkan yes wuu buuxaa xitaa hadday run tahay waxaan rabaa inaan tuurno temperature mid so dood adag baana dhex martay I articulated waxaan si fiican ugu qeexay sabab waxaan markii kale burdenka aan dhahay judge adiga you need to be a neutral judge dhexdhexaad ah agar soo magara the burdenka waxaa u shifti garaynay magaciisiga so haddeer qofkii marka waxaa loo ballamiyey individualkiisii waa tahay wararka soo baxayo sheegaya in dhallinyaradii qaar systemkii iyagana removal loo soo geliyay ma isleedahay dowladdu maadaama TBST dadka Soomaalida ay match ka dhacayso waxaba ka go'anba in dadkan Soomaalida ah maadaama master hearingkan loo soo wada geliyay ay doonayaan in Uganda ay ku celiyaan oo dowladdu arrintaasi ay go'aan ku gaartay sida aan ognahayna dad fara badan oo due process marin waan ognahay in hadda la qaaday oo Venezuela intooda badan u dhashay oo wadanka El Salvador la geeyo ilaa hadda wali ay ku xiran yihiin oo garsoorayaal ay doodayaan oo leeyahay dib ha loogu soo celiyo Mareykanka haddana due process ha la mariyo marka ma isleedahay dowladdu waxa ay doonaysaa dadkan Soomaalida ah in dhammaantoodba ay qabqabato oo Uganda ay geyso very good well waxaan aan ku sheegay was the technicals laakiin in general waxaan xitaa maxaa keenay haddeer kiisaskan dhawaan ka soo baxay PIA-da oo ilaa iyo sanadka hore bilaabmay waaye marka sida ay muuqato aniga attorney ba ahay siyaasaddu waa gooni laakiin cidna kama qarsoona just waxaa la rabaa in la dedejiyo maamulka hadda joogana hadba maalin walba tacticskii bay bedelayaan marka this is a way ay ku dhahaan tartiib oo dadkan due processkoodiina waan marsiinaynaa ku xadgudubna waan u jeednaa with short notices haddeer aan xitaa lawyeradii qaar loo soo gelinayo within one day or almost like 10 qof camal iyo ka badan waa garasoo magara marka this is a concerted effort marka waa isku day lagu adkaynaya asylumkii lagu dedejinaya dib u celintii laakiin dadku waxaan rabaa inaan u sheego weli toole inay isdejiyaan inay ogaadaan haddii tusaale ahaan lagu xukumo kiiskooda in la tuuro sababta loo tuuray inay isla markiiba inay ogaadaan very important walaal ma lawyerkiibaa ka gaabiyey oo markii horeba incomplete application baa lagu tuuray alright ma iyagiiba aan halka midaan u digayan waxay tahay as an attorney aan sheegayo waxay tahay it is not about Somali mararka qaarkood yes hadda Soomaalida waa la bartilmaameedsanaya laakiin qof walbo Soomaaliya qofka kale kiiskiisu la mid ma aha way fahanta soo magara certain asylum cases haba yaraadaane oo Soomaali ah qaar waxaa laga yaabaa very weak inay yihiin case hadda shuruudahan adag aysan kasoo bixi karin qaarna maybe sidii loo diyaariyay ay xun yihiin laakiin ay very strong yihiin walaal marka waa kaas marka it is hiirnadan hadda marka waxay noqotay checkpoint camal meel isbaara ah oo dadna way ka gudbi doonaan dadna halkaas bay ku hari doonaan marka dadka ku hara macnaheedu maaha degdeg in loo celinayo xaq waxay u yeelanayaan inay appeal ka qaataan rafaa ka qareen ahaan marka haddii aad adigu dhowr macaamiil aad leedahay macaamiishaadina hal maalin laga yaabo 3 qof ama 4 qof in maxkamad loo soo geliyo sidee u kala maareynaysaan macnaha arrintaasi oo kale sidoo kale culeys kuma noqonaysa qareenadii ayaga nafsad ahaantooda
Yes, you have a lot. Culays weyn bay hadda nagu tahay. Maxaa yeelay hadda masterka la hearing hadda I will give you a good example. Hadda when I look at my schedule, for example, one day, this coming on the 18th, I have 11 hearings back to back. Waa gartay. So I'm getting 11 hearings, or each hearing waxaa loo ballamiyay half an hour. So marka ugu horeysa dhegeysiyadan ma aha dhegeysiyo oo badan la sheegayo. Waa very short. Qaarkood waxay ku dhamaanayaan within like half an hour. So I'm getting more technical wise. So yes, hadda maanta oo subti xafiis waxaan u joogaa. Waxaan ka shaqeynayaa dadkii caseskoodii. So waxaan hadda sameynayna waxay tahay it is يعني how this case-kaani qatar miyuu ku yahay tusaale ahaan mid aan kuu sheegay case-kii matter of HAAV alhamdulillah inaad review ku samaysaan kiisaskiini oo dib eegis ku samaysaan. Yes. One thing dadka aan lawyer ku ahay iskumana faaninayo from the get-go waxay tahay we conducted يعني thorough intake waxaan caawiyaa Soomaaliga aan ku hadlayo. way fan soo magaran personally dadka aan lawyer ku ahay badankooda yani asylum kooda markay fiiriyaan meelaha ugu muhiimsan ma banaana way fan soo magaran none of them yani it is like you walaal hadda tusaalahan yar shalay soo wacay magaciisa ma sheegayo lawyer buu lahaa asylum kiisa isoo dir marka lawyer buu raadinay way fan soo magaran markuu ii soo diray asylum kiisa tusaale ahaan qayb baa jirta asylum application ka la yiraahdo party P marka party B question 1A waa tan ugu muhiimsan oo dhahaysa maxaad ka soo tagtay maxay tahay dibta kugu soo dhacday maxaa kugu dhacay haamkii dhibaatadii guess what maxaa ku qornay ma taqaanaa just waxaa ku qornay meeshaas oo dhan waa faadi arag waxa uu waa iska banaantahay waxaa ku qoran waxaa aragtaa declaration case guess what case-kaas oo kale sharciyan badanaa judge xun hadduu yahay excuse fiican buu helayaa uu adeegsanayo matter of court ku tuuraayo marka qofka asal haddii la tuuro waxay tahay inuu ogaado hadda wixii lagu tuuray lawyerkiina haddii uu marka horeba saa ugu gudbiyey inuu isla markii lawyer kala qabsado appealku uu lawyerkaasi uusan la joogin dhahayo lawyeradoo dhanna way xun yihiin laakiin walaal waxaan arkay mar kale aan ka hadli doonaa few attorneys oo soomaalida lacago badan hadday ka qaateen aan asylumkiina si fiican ugu buuxin dadkiina iyagiina aan si fiican ula xisaabtamin laakiin it doesn't mean asylumyadu marka dadku walaalayaal hal isdejiyo due processka weli waa uu jiraa marka qofkan waxaa muhiima laba hadda go-aan inuu gaaro waxaa ka dhawaajis kelmad la dhaho voluntary departure taa qofna judge uguma qasbi karo laakiin laftigeedu waa wax laga faa'iidaysan karo marka qofka waxaa muhiim ah in uu go'aansado early on inuu yidhaahdo well aniga haddii kiiskayga la tuuro uu diyaar garoobo ma rabaa inaan ku dagaalamo mise waxaan rabaa inaan faraha ka qaado iska laabto that decision is now aad iyo aad umahadsan tahay qareen cabdiqani jabane oo ka mid ah qareennada soomaalida ay ku nool Minneapolis isla markaana aan ka wareysanayay maxkamadahan dhalinyarada soomaalida ee wadanka sharci darrada ku soo gashay systemka loo soo galiyay isla markaana isaguna uu ka mid yahay qaar ka mid ah dhalinyarada soomaalida macaamiishiisa yihiin uu u doodayo ugu soo horeyso in 18 bisha uu dhalinyaro Soomaaliyeed maxkamadda la tagi doono waa kaaga mahad celinaya wareysiga mudan sidoo kale awar waxaan rabaa inaan ku daro tan kala sharci ma ahan hadaa wax su'aal qabtaan la tashada looyiradiin aad iyo aad umahadsantahay thank you very much bye thank you sidoo kale waxaan rabaa inaan idin raaciyo in hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta ee CARE iyaduna oo xafiiskeeda Minneapolis oo Jaylani Hussein uu madax ka yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo kiiskooda ama dismiss la yiraahdo ama removal loo galiyo ay ka dalbanayaan in nambarkooda inay la wadaagaan hay'adaasi CARE oo fadhigeedu xafiiska ay ku leeyihiin Minneapolis isla markaana waxay isku dayi doonaan in dhalinyaradaasi ay iyaguna u doodaan xuquuqdooda maadaama iyaguna ay u doodaan xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka hay'adda CARE arrintaasna gadaal ayaan rabay inaan idinkala socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo